وسو دواada BBC somali TikTok maxay taa khalaasada ka socoto baraha bulshada iyo maqaayadaha laga soo dhaxadlayo yaa dhalay CK Wisby ayub Carlo iyo Yaxbul maxaa ka galay Shiina Culay walaalahan isheesta Shiina Culay yaa sadalay warbixintan ayaan ku soo gudbin doonaa Shiina Culay dantiisa ma yaqaano howlahan howliisa maaha Wisby iyo CK way isla lashteen cid ka hadli kartana ma laan arintaas afartan walaalo oo kala Wisby CK ayub Carlo iyo Yaxbul ayaa isla dhashtay balse waxa goordhow maxkamaddu ka dhawaaqi doontaa hooyadii iyo aabaha dhalay ee ka dhumeen Shiina Culay maxay tahay sababta ugu qarinayay afartan walaalo hooyadooda CK iyo Wisbyna maxay isku haystaan daawadayaashan nagu xiran waan u jeedin waxay kadib waxa lagu dhawaaqayaa maxkamadda afartan walaalo hooyadood iyo aabahood waxa halkaan isugu imaaday malaayiin qof ee rabaan inay ogaadaan afartan walaalo hooyadooda yarantooda ka dhumeen kana tagan adduunka geesooda waa ninka koowaad Wisby CK Yaxbul iyo Carlo waxa dhashay maamada weyn ee maama Milyuun aabahoodana uu yahay dabacasir sidoo kale Shiina Culay waxa dhashay maama Franco aabiisuna uu yahay bursal fala degan maxay tahay dareenkaaga oo kaaga duwan yahay dadkani afartan walaalo hooyadood iyo aabahood iyo Shiina Culay hooyadiis iyo aabiis run ahaantii ilmo markay yihiin in la dayaco kuma fiicno waalidiintoodan way ku soo fasaxeen inay yiribtaan ay ku raaxaystaan markaani dareen ahaanteeda waxay tahay Shiina Culay dantiisa inuu aqoonsado faraha ka qaaday afartan walaalo siiba Wisby iyo CK shaqadiisa maahan marka waa nin aftaan magaalka naga yaqaano dhamaan halkan waxaan ugu sheegayaa bulshaweynta isticmaasha baraha bulshada fadlan ilaashada maqaayadihiina iyo waxaad ku hadlaysiin haddii kale waxaad awood loo yeelan doonaa in maqaayadiin laga soo dhaxalo hadirtan waxaad nagala socotaan waa BBC Somali TikTok halkaani ayuu nooga egyahay wixii war aan idin haynay waa inoo kulanti dambo iyo xiiso kale